عبق من التاريخ من عمق القرون فاحت به الآثار بسند المصون. dimashq waa mid ka mid ah caasimadaha ugu qadiimsan uguna fac weyn caalamka. hadda waa magaalo madaxda iyo xarunta siyaasadda dalka Suuriya ee dhulka Shaam. magaaladan waxaa la aasaasay 9,000 oo sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam. baaxisiintu waxay sheegaan inay ka mid tahay magaalooyinka ugu qadiimsan caalamka. waxaa dhidabada u taagay hogaamiyihii aaraamiga ahaa ee Rezon, kaasoo caasimadii mamlakadiisa ka dhigay magaaladani. waxay caan ku ahayd arrimo badan sida cilmiga, siyaasadda iyo farshaxanka. waxay dhacdaa cirifka koonfur galbeed ee dalka Suuriya, waxaana dhanka bari ka xiga buuraha silsiladda ah ee Qalamuun, waxaana dhex mara webiga Barda, waxaana ku hareeraysan dhulbeereedka Alquuda. tirada dadka ku dhaqan magaaladan waxaa lagu qiyaasayaa ku dhowaad 3 milyan oo ruux. magaaladan qaybteeda qadiimiga ah waxay dhacdaa daanta koonfureed ee webigan iyo buurta Qaasiyoon, halka xaafadaha cusub ay dhacaan dhinacyada waqooyi iyo galbeed. magaaladan waxay marin u ahayd ganacsiga caalamka. dimashq waxay lahayd magacyo kala duwan sida Xibaar, Nuuram, Shaam, Yaasimiin, Timashki iyo kuwa kale. magaceeda hadda ee dimashq mu'arriqiintu way isku khilaafsan yihiin asalkiisa iyo micnihiisa. qaar waxay ku sheegeen inuu ka kooban yahay kalimado ka mid ah luqadda Ashuuriyiinta oo u dhiganta dhulkii quruxda badnaa ama dhulkii camirnaa, halka qaar iyaga ka mid ah ay sheegayaan in magaca Shaam uu ka yimid Saam oo ah mid ka mid ah wiilashii uu dhalay Nabi Nuux calayhi salaam, oo ahaa rasuulkii ugu horreeyey ee Alle uu soo diro basharka. dimashq waxay caasimad u soo noqotay dawlado, maamulo iyo imbaraadooryado kala duwan oo ka talin jiray bariga iyo galbeedka dunida, sida Aaraamiyiinta, Ashuuriyiinta, Kildaaniyiinta, Roomaanka, Faris iyo kuwa kale. Aliskandarkii weyna ayaa magaaladan la wareegay 333 ka hor dhalashadii Nabi Ciise. markii uu geeriyooday kadib, dimashq waxay qayb ka noqotay maamulkii Suluuqiyiinta oo caasimadoodu ahayd magaalada Antakiya ee dalka Turkiga. 85 sano ka hor miilaadiga waxaa dimashq la wareegtay dawladdii Ambaadiniyiinta, gaar ahaan intii uu talada hayay Alxaariskii saddexaad. Roomaanku waxay magaaladan la wareegeen 64 sano ka hor miilaadiga, waxayna ka mid ahayd meelihii ugu horreysay ee sida aadka ah ay ugu faaftay diinta Kirishtaanka. dabayaaqadii qarnigii 4aad ee miilaadiga waxay qayb ka noqotay imbaraadooryadii Bizantiyiinta ee caasimadeedu ahayd magaalada Qustandiniya ee hadda Istanbul loo yaqaano. xilligaas waxay magaaladu noqotay saldhig ciidan oo looga hortago zaxfiga Bizanta uga imaanayay dhanka iyo dawladdii Saasaaniyiinta oo xilligaasi xarunteedu ahayd dalka Iiraan. waxaa ka dhex faa'iidaystay oo magaalada qabsaday boqortooyadii Qasaasinada, waxayna u sameeyeen lacag u gaar ah oo lagu magacaabi jiray dimashq, iyagoona ka hergeliyey qasriyaal maamul oo aad u qurux badan. 612 miilaadiga waxaa magaalada kala wareegay imbaraadooryadii Faris, taas oo wakhtigaasi gacanta ku dhigtay guud ahaan magaalooyinka dalka hadda loo yaqaano Suuriya oo idil. wakhti badan ma aysan haysan dimashq. 15 sano kadib waxaa soo weeraray imbaraadorkii Roomaanka ahaa ee Herakle, oo magaalada u sameeyey wadooyin waasic ah iyo derbi aad u dheer oo laga difaaco, kaas oo weli muuqda, waana nin ka sameeyey 7 albaab ee laga galo magaalada. سيظل فخرا يعتلي الأجيال. muslimiintu waxay dimashq furteen ahdigii Cumar Faaruq, khaliifkii labaad ee muslimiinta, gaar ahaan taariikhdu markay ahayd 14 bishii Rajab sanadkii 14aad ee hijriga, oo ku beegnayd 3 bishii Sebtembar sanadkii 635 miilaadiga. waxaana gacantiisa ku furtay geesigii islaamka Khalid bin Walid kadib 6 bilood oo uu go'dan ku hayay magaalada. intii ay khilaafada muslimiintu hayeen Cumar iyo Uthman, dimashq iyo guud ahaan Shaam waxaa waali ka ahaa Muawiya bin Abi Sufyaan. intii uu halkaasi ku sugnaa waxaa dhacay dagaalkii daakhiliga ee muslimiinta, halkaas ayuu ka aasaasay dawladdiisii. markii uu geeriyooday kadibna waxaa talada la wareegay wiilkiisa Yaziid bin Muawiya. magaaladu waxay muddo 661 sano caasimad u ahayd khilaafadii Umayyiyiinta oo ka mid ahayd dawladihii waaweynaa ee soo maray taariikhda dunida, taas oo maamulaysay min Shiinaha ilaa iyo Andalus oo ah koonfurta qaaradda Yurub. markii ay taag daraysay khilaafadii Umayyiyiinta
waxaa dimashq xoog kula wareegay cabbaasiyiinta oo markii dambe caasimadooda u raray magaalada baqdaad ee waddanka ciraaq. markii ay bilowdeen kacdoonnadii looga soo horjeeday cabbaasiyiinta waxaa dimashq la wareegay maamulkii duluuniyiinta oo caasimadoodu ahayd magaalada qadaaci ee dalka masar. iyagana waxaa magaalada ka qabsaday akhshiidiyiinta oo caasimadoodu ahayd magaalada fusdaad ee dalka masar. kadib iyagana waxaa magaalada kala wareegay qaraamidada oo xaruntoodu ahayd magaalada axsa ee dalka sacuudiga. waxaa iyagana magaalada ka saaray saliibiyiintii bizandiyiinta. sannado kadib waxaa iyagana magaalada ka qabsaday xamdaaniyiinta oo caasimadahoodu ay ahaayeen xalab oo suuriya ah iyo mawsil oo ciraaq ah. kadib magaalada waxaa la wareegay maamulkii faadimiyiinta oo caasimadoodu ahayd magaalada alqaahira ee dalka masar. 996 miilaadiga waxaa dimashq ka bilowday kacdoono shacbi ah oo looga soo horjeeday xukunkii faadimiyiinta shiicada ah. suldaankoodii xilligaas alxaakim biamrillaah ayaa amar ku bixiyey in la qamciyo shacabka sunniyiinta ah, waxaana daldalaad lagu dilay 10 ruux oo muslimiin ah oo qayb ka ahaa thawradaasi. waxaana bilowday barakac ay samaynayeen shacab badan oo arrintaasi ka gadooday. wixii intaasi ka dambeeyey waxaa suuriya soo gashay awoodda salaajiqada oo xilligaasi ahayd mid curdun ah, waxayna dimashq la wareegeen dagaal la'aan. salaajiqadu waxay xoogga saartay inay dadka ka dhisaan caqiidada, waxayna fureen madaariis badan oo lagu barto diinta maadaama faadimiyiintu ay magaalada ku faafiyeen mabda'ooda shiiciga ah. markii khilaafadii cusmaaniyiintu ay magaalada la wareegeen waxa ay ku sameeyeen dib u dhis ballaaran. كانت به أمجادنا تتوالى كانت عزائم أمتي خفاقة والله أكبر في السماء تتعالى. intii uu socday waxa loogu yeero dagaalkii koowaad ee adduunka. dimashq waxay xarun u ahayd isbahaysiga Turkiga iyo Jarmalka oo dagaal kula jiray xulafadii reer galbeedka ee ay hogaaminayeen Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga iyo Mareykanka. 27 bishii May sanadkii 1918 Turkigu waxay ku dhawaaqeen in gebi ahaanba ay isaga baxeen dimashq. 1 bishii Oktoobar waxaa magaalada la wareegay ciidankii kacdoon wadayaasha Suuriya, kuwaas oo ku dhawaaqay dawlad Carbeed oo uu hogaaminayo cali ridda arrikaabi, kaas oo noqday ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee dalka Suuriya iyo ra'iisul wasaarihii saddexaad ee dalka Urdun. 2 sano kadib 24 bishii Julaay sanadkii 1920 waxaa magaalada la wareegay saliibiyiintii Faransiiska oo Suuriya u kala qaybiyay 5 wadan oo mid walibana ay u sameeyeen caasimad, calan iyo baasaboor u gaar ah. waxayna kala ahaayeen dimashq, xalab, calawiya, lubnaan iyo jabal duruus. kacdoono hubaysan oo muddo socday kadib Faransiisku waxa uu ku qasbanaaday in dimashq uu isaga baxo sanadkii 1945 waqtigaas oo Suuriya ay qaadatay gobonimo ku sheega. dimashq waxay aad u balaaratay oo dadkeedu bateen markii Filistiin ay ku dhacday gacanta Yahuuda sanadkii 1948 markaas oo ay ku soo jabeen barakacyaal badan oo Filistiiniyiin ah. waxay mar kale mawjado barakacyaalaha qaabishay sanadkii 1976 oo uu dhacay dagaalkii Oktoobar ee u dhexeeyay Yahuuda iyo dawladaha Carabta. magaalada waxaa ku yaala jaamica weyn ee Al-Umawiya oo dhaca bartamaha magaalada, kaas oo qarniyo badan xarun u ahaa xadaarado iyo siyaasado kala duwan. masjidkan waa kii ugu horreeyay ee ay dhisto khilaafadii Umawiyiinta, waxaana loo sameeyey 4 minaaradood oo aad u dhaadheer, waxaana dib u habeyn ku sameeyey Al-Waliid ibn Abdilmalik oo ahaa khaliifkii 6aad ee dawladdaasi. waxaa sidoo kale magaalada ilaa hadda ku taala qalcaddii 4 albaab iyo qalcaddii dimashq, taas oo magaalada ka dhigaysa meel si aad ah u soo jiidata dadka dalxiisayaasha ah. قلعة دمشق هي أحد أهم المعالم الشهيرة. qalcadda dimashqi waxay ka mid tahay waxyaabaha ay caanka ku tahay magaalada dimashq, waxayna dhacdaa iridda bari ee laga soo galo magaalada marka loo socdo masjidka weyn ee Umawiyiinta. waana meel laga difaaca magaalada dimashq, waxaana laga dhisay meel u dhow xeyndaabka ku wareegsan magaalada. waxaana qalcadan loo dhisay si magaalada looga difaaco cadowga soo weeraraya ee la damacsan sharta. culimadii waaweyneed ee ka soo baxday magaaladan iyo kuwii soo maray waxaa ka mid ahaa Mucaad bin Jabal oo ka mid ahaa culimadii ugu waaweyneed ee saxaabada rasuulka, ahaana ruuxa ugu aqoonta badan xalaasha iyo xaaraanta.
mucaad waxa uu ka mid ahaa culimmadii wax ka akhrin jirtay magaaladan. waxaa kaloo ka mid ahaa bilaal bin rabaaxa oo ahaa mu'adinkii rasuulka iyo culimmadii ugu caansaneed ee soo martay dimashq, kaas oo hadda ku aasan isla magaaladaasi. iyo sidoo kale mucaawiya bin abi sufyaan oo ka mid ahaa saxaabadii waxyiga qori jirtay. waxaa kaloo ka mid ah sacd ibnu cubaada, anas ibnu maalik, cawf binu maalik, khaalid binulwaliid, thawbaan mawla rasuulillaahi iyo kuwo kale oo badankood ku aasan magaalada dimashq. culimmadii taabiciinta ee soo maray dimashq waxaa ka mid ah abu idriis alkhawlaani, qaadigii magaalada oo cilmi badan ka dhaxlay saxaabada rasuulka. waxaa kaloo taabiciinta ka mid ahaa qaasim bin cabdiraxmaan oo wax ka wariyey abi hurayra iyo abi umaamat albaahili. waxaa kaloo magaaladan soo maray taabiciin badan oo aan halkan lagu soo koobi karin. culimmadii taariikhdooda waartay ee dimashq soo maray waxaa ka mid ah muxadidka iyo faqiiha caalimka ah ee imaamu nawowi. mu'alafaadkiisana waxaa ka mid ah kitaabka minhaaju daalibiin. waxaa kaloo ka mid ah sheekhulislaam ibnu taymiya. mu'alafaadkiisana waxaa ka mid ah majmuuculfataawa. culimmada sidoo kale la yaqaano ee reer dimashq waxaa kaloo ka mid ah ibnu kathiir, alxaafid ibnu xajar al asqalaani, sheekh sakhaawi iyo taarikhyahanka abulqaasim oo ku magaca dheer ibnu casaakir iyo muxadidka weyn ee casrigan maxamed naasiruddiin oo ku magaca dheer albani iyo kuwo kale oo aad u badan. alxaafid ibnu casaakir waxa uu magaaladan ka qoray kitaab loogu magacdaray taariikhda dimashq oo ka kooban 80 mujallad, kaas oo ku tusinaya ahmiyadda magaaladan iyo inaan lagu faalayn karin xalqo iyo mid labaad. mujalladka koobaad ee kitaabkan xaafidku waxa uu kaga hadlayaa oo keliya fadliga ay leedahay magaaladan iyo guud ahaan dhulka shaam iyo futuuxaadkii muslimiinta ee dhulkaas, halka mujallaadka kale uu kaga hadlayo dadkii soo maray magaaladan oo ay ku jiraan ambiyo, boqorro, guddoomiyaal degmo, qudaad, culimo iyo shucaro. minaarad ku taalla bariga magaaladan waa halka uu ku soo degi doono nebi ciise calayhi salaam oo ay la socdaan malaa'igta alle markii ay soo dhowaato saacadda qiyaame, sida ku cad xadiis laga soo wariyey nebigeenna oo ku sugan kitaabka saxiixu muslim, kaas oo sidoo kale caddaynaya dharka uu maalinkaasi xiran yahay nebi ciise iyo qaabka uu ku soo degayo. أحبابي من علامات الساعة الكبرى التي أخبر عنها رسول الله. dadka aan jecelnahayow calaamaadka muujinaya qiyaamaha ee uu noo sheegay nebiga sallallahu calayhi wasallam waxaa ka mid ah in nebi ciise calayhi salaam uu ka soo degi doono samada isagoo ku soo degi doono dhulkan. arrintaasna waxay u dhacaysaa sidii uu u sheegay nebiga sallallahu calayhi wasallam oo ah inay malaa'igtu ku soo dejin doonaan meel u dhow manaaradda bari ee dimashq. وينزلون به عند المنارة الشرقية في دمشق. bishii maarso ee sanadkii 2011 markii uu dilaacay kacdoonkii guga carabta, dimashq waxa ay martigelisay mudaharaadyo xoogan oo lagu dalbanayay inuu xilka ka dego bashar al asad. xaafado badan oo magaaladan ka mid ah waxay la kulmeen weeraro adag oo ay ku soo qaadeen askarta nidaamka shiiciga ah ee dalkaasi xoogga ku haysta, dagaalka adagna kula jira dadka ahlu sunnaha oo ah aqlabiyadda waddankaasi. weeraradii ugu waaweynaa ee magaalada ka dhacay waxaa ka mid ah kii lagu qaaday xaafadaha joobar iyo kaamka yarmuug, kuwaasoo ujeeddadoodu ahayd in la qamciyo shacabka sunniyiinta oo iyagu hor boodayay dibadbaxyada iyo in la fashiliyo kacdoonka. فلئن تكن نامت فإن لها غدا تصحو وتشرح فيه مختصر المتون.